wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha iyo saxaafadda Somaliland labaduba waa salaamantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan ka hadlaynaa wasiirka iyo aniguba dhacdooyin nabadgelyo darro oo gobolladeena qaar ka mid ah ka dhacay. dhacdadan ka hadlaynaa waxa weeye waa dhacdadii ka dhacday magaalada Laascaanood dhowr habeen ka hor. marxuum maxamed cabdi cali shire allahu naxariistee in cabdi timir oo lagu dilay magaalada Laascaanood ka mid ahaa ganacsatada maxaan ku dhahday gobolka Sool buu ka mid ahaa. dadka ciyaartay reer Laascaanood weeye. waan ka tacsiyadeynaynaa dhammaan dadka gobolka iyo qoyskii reer cali shire intaba. waxaanu leenahay samir iyo iimaan ilaahay hayda ka siiya, ilaahayna isagana naxariista jannada ka waraabiyo. dhacdada waxaan leenahay howlgal adag baa dowladdu kaga jirtaa, dadka gobolka reer Soolna ay kaga jiraan, odayaasha iyo waayeelka iyo mas-uuliyiinta gobolka ka soo jeeda oo wasiirku ka mid yahay iyo wasiirada kale iyo ragga baarlamaanka gobolka ka soo jeeda. intuba howl adag bay ka galeen. madaxweynaha way iska arkeen, ka wasaaradda dakhliga waanu iska aragnay, imika waa nakan ka hadlaynaa. waxaan leenahay dhacdadaasi waa dhacdo inagu wada dhacday, qadar allah sababay inuu intaa sidaa ku geeriyoodo. waxaynuna doonaynaa mar walba inaanay nabadgelyadu inaga ruxmin. waxaynu doonaynaa inay maxaanku idhaahdaye nabadgelyadu inoo taagnaato. waxaynu doonaynaa inaynu nabadgelyada ka wada shaqayno. gaar ahaan shilka dhacay waxaynu doonaynaa inaynaan ku xidhiidhin. waxaan ka codsanayaa deegaanka Laascaanood ee gobolka Sool, waxaan kale si gaara uga codsanaynaa, kula dardaarmaynaa, ku adkaynaynaa deegaanka gobolka Xaysimo Taleex inaan dhacdadan lagu xidhiidhin dhacdooyinkii hore ee aynu maxaanku idhaahdaye kasoo gudubnay. nabadeynta badan laga sameeyey ee maanta lagu wada degan yahay inaynaan arrimaha ku xidhiidhin. waxaynu doonaynaa inaynaan u hiilin maalin walba nin gacan ku dhiigla ah. aynu meel uga soo wada jirno. gacan ku dhiigla nin maxaanku dhahday wax danaynaya maaha, nin dadkan wada noolaashihiisa danaynayana maaha. waa nin doonaya in arrimahaasi ay mar walba xumaadaan. marka waxaynu doonaynaa inaynu guddigan ku wada shaqayno mar walba si aynu una badbaadino, dadkeennana u badbaadino, nabadgelyadeennana u badbaadino, inaynu gacan ku dhiiglaha meel uga soo wada jeedno. taasay shareecada ilaahay ina faraysaa, taasaa dadnimaduna ina farayaan. qodobkaa waxaynu leenahay howlgal adag baa lagaga jiraa. dowladda culays adag bay saaraysaa in gacan ku dhiiglaha ay soo qabato. raggii la shaqaynayay qaar ka midoo lagu tuunsan yahayna hadda gacantaa lagu haya. markaa waxaan jecelahay oon arrinkaa kusoo gabagabeynayaa inaynu arrinkaa nabadgelyada ka wada shaqayno, inaynu arrinkaa dhinacyadoo dhamina xukuumadda la shaqeeyaanoo aynu gacan xoog la saaro. dhibaatada waynu kasoo gudubnay. waxaan deegaanka gaar ugala hadlaya waxa weeye khasaare in ku filana hore usoo dhacday, dhimasho in ku filanina horey usoo dhacday, dhaawac in ku filanina horey usoo dhacday. ugu abtirin mayno markaa arrinkii hore. waxaynu ugu abtirinaynaa gacan ku dhiigle doonaya inuu arrimaheena maxaanku dhahday burburino.
أنا تعسيدين يا قوس كنا قاربنا تعسيدين يا هنقول هذا هالك قوس كي إن عبد التمر هذا هالك وفنيا قوس كي بهالك فنيا فكسيدا في عنا ولا ولا إن المسيدار وسنين على الشراء إن المسيدار بفنيا وهر على الشراء وحفنيا إن هنقول هذا ياسين على الشراء فنيا marka waxa weeye nin magaalada ka dhintay boo ya Maxamed Cabdi Timir nin acyaantii magaalada Laascaanood boo halka meel ka hooseysa ku baadi dooni mayno halka meel ka hooseysa ku baadi dooni mayno reerkana waa tacsiideynaya dhacdada haddii aan ka gudbo waxaan erayadana ka odhanayaa dhacdadii fadhiga ka dhacday oo dhimashay dhaawac ba lahayd waxaan leenahay dadkii dhintayna waan tacsiideynayna dhaawacana waxaan leenahay ilaahay ha caafimaadiyo waxaynu doonaynaa markaa dhacdadaasina waxay dhacday iyadoo ayaama ka hor la soo afjaray dhacdadii dararweyne iyo ceelafeen muddada doora kasoo taagnayd markastoo dhacdo noocaasi ay dhacdana qaranka dhiigbax bay ku tahay dhabar jabin bay ku tahay dhibaatay ku tahay markastana arrimaha waxa buunbuuniya oo soo celceliya ayadoo lala safto oo la qariyo qofka dambiilaha gacan ku dhiga dabadeedna waxay keentaa dad aan sabab ay geysteenba aanay jirin oo wax dhibahoo ay geysteenba aanay jirin in ay u dhintaan gacan ku dhiigle iyo dambiile la qariyay dabadeedna maantidii waxaa ku imaada baraka caruurtii iskuullada ku jirtay meelaha dee magaalooyinka waaweyn ka baxsan ee cunfi qabiil markiiba lagu kala qaxayo maxaan ku dhahdaayay waxa caruurtii waxa ka xidhmay iskuulladii magaalooyin yaryar oo kooban oo maxaan ku dhahdaayay noloshoodu ay ku xidhan tahay wada noolaanshaha inta deegaanka wada degan ayaa markiiba kala qaxaya markaa noloshii oo dhan baa burburaysa iskuulkeena ay caruurtu isugu tegi jiray baa xidhmaaya ganacsigii yaraa iyo magaaladii iyo maxaan ku dhahdaayay hawsheedii yarayd baa maxaan ku dhahdaayay ayaa markiiba burburaysa waxaan ku boorinaya oo ku adkaynaya oo faraya deegaamada qaybka dhacdadu ay ka dhacday gaar si gaar ah mudday soo socotay arrintii dararweyne tanina deegaamada dararweyne uun ay isku maxaan ku dhahdaayay deegaanka yihiin bay ka mid tahay si aanay dib ugu daaq tegin oo dib ugu abtirsanin oo xumaan dambe aanay abuurin oo nabarro hore oo bogsaday aan dib loo xoqin waa in meel looga soo wada jeedaa qofka gacan ku dhiiglaha in la qabto si loo samata bixiyo oo loo badbaadiyo dad maata ah iyo dad aan dembi lahayn oo maxaan ku dhahdaa dhibaata ay ku dhacdo labada degaan waan ku adkaynayaa waayeelkooda waan ku adkaynayaa salaadiintooda waan ku adkaynayaa ayaantan intii fadhigaan dabadeedii waynu garanaynaa dalka bari iyo galbeed ummadda degan waayeelkeedii iyo waxgaradkeedii inta telefishan fadhiday inkaar baaba idinku dhacaysa oo dadkaan naxdin baa idinkaga dhacaysa marka iyagana waxaan leenahay aada ha loo dadaalo nabadda ha lasoo dabaalo xukuumaddu meel adag bay ka taagan tahay dabadeedna waxaanu u baahannahay dee xukuumaddu inay waayeelku la shaqeeyaan halkan waan isku aragnay waayeelkii maxaan ku dhahdaayay deegaanka si aada iyo aada u wanaagsan oo gobonnimo leh oo sharaf leh oo maxaan ku dhahdaayay deegaannimo leh oo laxajeclo leh ayay labaduba halkan qaraar ugu gaadheen in ay nabadana gacan adag ku qabanayaan wadana shaqaynayaan xukuumaddana la shaqaynayaan aada iyo aad baa umahadsantihiin waxaan kusoo dhaweynayaa wasiirka waxaan halkan ka salaamaya wasiirka arrimaha gudaha oo aan isleeyahay ila fadhiya oo runtii aan isleeyahay waa oday weyn oo khabiir ku ah deegaanada somaliland oo dhan waxaan ujeedadeedu tahay inaan halkan uga tacsiideeyo mar labaad aan maalin horaa
inkastoo aan warbaahintu yarayd maxamed cabdi cali shire in cabdi timir ku magac dheeraa oo ku geeriyooday gacanka xaqdaran ku dishay magaalada Laascaanood وانا كل نفس ذائقة الموت وسبب لكن إلهي بعضها قريب مسؤولية دالك كسارا هي مسؤولية كل إنا كود صارا راح يتعب إنا نقف كجعانكم بيجلها وهيل هدي أوجي إنك جعانكم بيجله إن سجل الرعد سني أما isagu sharcigu daba soconayo waqti kasta ku qaadateen ama qofka arintaasi ay taabanayso uu isaga noqonayo qof loo xidiyay maalin kasta wuxuu isleeyahay waxa loo dilayaa ama ay ku dhacaysaa qof kale oo miskiin oo meel fadhiya dadna isna maalinta ku xigtana maqaaxidu soo fadhiisanay anigu waxaan leeyahay dhammaan dadka caailada ay garanaysa reer Taleex anigoo garanaya xaroonka iyo beenka iyo arintu sida ay tahay haddana waxaan leeyahay ninka ayaan loo samaynin gacan ku dhiiglaha yaan loo samaynin wax uu ku gudbanaado oo intii cidii eheladii iyo qoyskii iyo ka dhintay inta isxakameyn karaan ay isxakameyn si loo raadsado kii dembiga galay aad baan ula tiiraanyoonaya ana u garanaya xanuunka uu leeyahay hal abti tibir oo aan garanayo inuu soo qof bini aadan weligii gacan iyo aftoona wax ka yeelin inuu wax taramooyo sababta uu loodi anigu waxaan islahaa maanta haddaad xilka hayso waxa iigu weyn ee labadayda garab saaraa wuxuu ahaa in aan hawshaas soo afjaro anigoo wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynahaba raba inay si hoose igala shaqeeyaan kana codsaday qof kasta oo bil aadan wuxuu yiraahdaa wuxuuna kugu sultanaaday laakiin marka aan constituency-ga ka soo jeedo ka hadlayo waxa ugu weyn ee maskaxdayda ku jiray wuxuu ahaa inaan soo afjaro arrinta ilaahay hortii maantana weli ma lumin waxaan leeyahay iyadana diyaar baan u nahay madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudahoona labaduba waa laba nin oo xooggaalo haddaan aniga iyo mid la midiba kaga jiro xumaan waa niman garanaya haddaan wanaag kaga jirana way garan talada ugu weyn ee meesha taallana waxa weeye inaynu reer deegaankaasi uu noqdo deegaan lagu wada noolaado haddii aynu caqli keenno oo tala keenno maalin kasta ninkeenii ugu mudnaa in la gabawaro waynu ka adkaan lahay waxaan leeyahay maxamed cabdi tibir maanta ilaahay abuuray baa oogsaday gacanka xaqdaran baa dishay kaana if iyo aakhiro meeshuu tago kaga hari mayo arrintaa reerkana wasiirka arrimaha guduhuna waa kan isagaa amniga iyo kala dambeynta iyo degmooyinka iyo qabaa'ilka intaba isagaa toos u xukuma wasiirka waxaan ka codsanayaa inuu arrintaa si buuxda qof buu u yaqaanaa deegaanka qof iyo qoys buu u yaqaanaa inuu si macnale noogala shaqeeyo madaxweynahuna runtii wuu naga ballan qaado waana arrin muddo soo rafatay sidaa uu yidhina sidaa uu yidhi wasiirka arrimaha gudahana waanu ka ballanay sidaa uu yidhina yaan loo samayn oo yaan lala xidhiidhin oo yaan ninkii dembiilaha ahaa loo samayn gidaar uu ku dhunto isagaynu daba soconaynaa ilaa iyo maalinta aynu sharciga horkeenin awoodda kolley anigu intaan xukuumadda ku jiro waad la garanaysaan haddii maalin baan Taleex tegayo aan ciidan u haysto wixii aan sameeyey waa la garanaya inaan qofna ila aadana maantana ciidankii qaranku wuu joogaa waxaan leeyahay isxakameeya talada inuu taalina waa taa madaxweynuhuna diyaar buu u yahay inuu arrintaa intervention iyo wasiirka arrimaha gudaha aad baad u mahadsantihiin waan wada soconaa ehelkii dadka maanta in mas'uul oo caqli garanaya dadka aan ogahay maanta arrintaana waxaan isleeyahay dad aan naxay labada reer iyo ka dambeeyay
wixii dawladdu ka qaban karto iyo waxaanu ka qaban karnaa diyaar baanu u nahay ilaahayna waxaan uga baryaynaa maxamed cabdifiir halku ka baxay awal khayr inuu ummadda ugu soo bedelo kulligiinba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu